السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن halkaad nagala socotaan waa Jabba TV fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saar like-ta dhiirigelinayo noo tahay share comment midnaha ka iloobin aad baad u mahadsantihiin la socodkiina ama daawashadiina kusoo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon farmaajo iyo kheyr oo aqbalay dalabkii kaga yimid madaxa dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare oo aqbalay go'aankii ka soo baxay shirka ka socda Dhuusamareeb. wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay aqbaleen ka qaybgalka wejiga labaad ee shirka madaxda dowlad goboleedyada uga socda magaalada Dhuusamareeb. xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in labada mas'uul ee ugu sarreeya dalka ay aqbaleen dalabkii uga yimid madaxda dowlad goboleedyada ee ahaa inay ka soo qayb galaan shirka si looga wada tashado arrimaha ugu horreeya doorashooyinka dalka. Ra'iisul wasaare Kheyr ayaa lagu wadaa inuu beri gaaro magaalada Dhuusamareeb si shirka uga socda uu ugu biiro, waxayna wararka intaas ku darayaan in madaxweynuhu ku wajahan yahay Dhuusamareeb balse uu ka dambeyn doono ra'iisul wasaaraha. madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa warmartiyeed ka soo saaray wejiga koowaad ee shirka uga socda Dhuusamareeb, waxayna madaxda dowladda federaalka uga dalbadeen inay ka soo qayb galaan wejiga labaad ee shirka si looga wada tashado arrimaha masiiriga u ah dalka. wararka ka soo baxay shirka madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa soo dhaweeyay xisbiyada siyaasadeed ee dalka, iyadoo xisbiyada qaarna madaxda dowladda federaalka ugu baaqeen inay ka qayb galaan wejiga labaad ee shirka ka socda Dhuusamareeb. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada dalka ee xalay lagu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Dhuusamareeb gobolka Galgaduud. afayad ka soo baxay xafiiska Cabdi Xaashi ayaa waxaa lagu sheegay in go'aamada ka soo baxay shirkaasi ay yihiin kuwo taariikhi ah oo loo baahnaa. kale qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in go'aamadaasi uu golaha aqalka sare u arko kuwo guul u ah oo heshiis dhab ah looga gaari karo khilaafka ka jira dalka. ugu dambeyn qoraalkan ayaa waxaa lagu mahadceliyay Galmudug iyo shacabkeeda oo iyadu martigelisay shirkaasi. horey ayaa gudoomiyaha aqalka sare u waday dadaalo meel la isugu keenayo madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo kuwa dowladda federaalka si xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka ee lagu muransan yahay, kuwaas oo bilaabanaya dhammaadka 2020. salaam marka hore mugwey wadnaa iyo soo dhawey madaxdii Soomaaliyeed galmudug marti kuma tihi madaxdii Soomaaliyeed galmudug marti kuma tihi dadaan kala maarmiyo mataana qudhaynahay salaam marka hore mugwey wadnaa iyo soo dhawey madaxdii Soomaaliyeed galmudug marti kuma tihi